بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد إما كنا وحن بالله بينا حلقة لبعض oo saan horay idin kaga ballan qaaday oo kamid ah xalaqaadka aan ugu talagalay problemka ama problemiska ma aragtay oo psychological-ka oo ilmaha ku dhaca markay yihiin ama la soo gudboonaada loona baahan yahay inuu waalidku ogaado waxaan soo qaadanay mid ugu horeysa aladiira maseerkaan soo qaadanay waxaan soo sharaxnay maseerka ma aragtay qeexiisii baan wax u yahay soo sharaxnay halqadan waxaan ku qaadanaynaa asbaabaha keeni kara cunug inuu masayro waxyaabaha keeni kara aan ku qaadanaynaa marka maxay yihiin causeska ama asbaabaha keeni kara ilmaha yar inuu masayro waxaan ku soo koobaynaa dhowr qodob waxaa ugu horeeya cunuga inuu dareemo shuruudul binaqs inuu dareemo in maxaan ku iraahdaaye uu liito inuu dadka uu la nool yahay inay isaga liidayaan ama in isagu iska dhaadhiciyo dadkan way kaa fiican yihiin ama way kaa qurux badan yihiin maqurxoonid oo kale inuu dareemo ama inuu dareemo ilmaha isaga la nool ama uu la joogo ama uu la ciyaaro ama wax la barto waxay haystaan inuusan haysanin dharka ay xiran yihiin inuusan haysanin xaafadahooda dhaqaalaha yaal inuusan ma aragtay helaynin naqsigaas markuu dareemo cunuga mushkiladaas way ku dhalataa mushkiladda mar hadday dhalatana si aan caadi ahayn bay u saamaysaa qodobka labaad ama sababka labaad ayaa wuxuu noqon karaya oo keeni kara cunuga inuu noqdo inay la deristo mushkiladan masayrka inay la deristo waxaa ka mid ah anaaniyatu tifli selfish child أنانية أفكار صومالي وإسك أنانية عنقي سيبا لو كل كولية كل انتي بودريمها وحو الربا الماء إنو أباها كحكسدو وحو الربا إنو هويا إنو كحكسدو أما وابا الله تصيبي نهريس تاس أيا الله تصي مركا هدي مركا الدريار فربضان والماء كلا آنقبين عنقاس والله كل مؤمن الله سيو waxaa mushkiladan maseerka si fudud bay ugu dhalanaysaa cunuga marka waxaa la rabaa taas beddelkeedii waynu tegi doonaaye habdhaqanka ilmaha in la simo oo si anaaniye aysan ugu dhalanin hadhowd waxaa imaan karta wax kasta haddii wax la cuni rabo anaa cunaayo kan waa weelkaygii kan waa maradaydii aabbihii hataa aabbihiina maana aabbihii waa inuu yidhahdaa dhici karta ugu dambeyn marka anaaniyaa la yidhahdaa marka anaaniyadaas waxay keenaysaa iyadana cunuga in mushkiladda maseerka ay la soo gudboonaato ama uu la noolaado ama ay la soo diristo way keeni kartaa waxyaabaha sababi kara mushkiladda oo ma aragtay maseerka cunuga inay la saaxiibto ama la diristo waxaa ka mid ah ma aragtay ilmo kale ama cunug kale inay hooyada dhasho inay hooyadiisa ay dhasho cunug kale markii hooyadiisa uu ku arko inay dhashay cunug kale oo isaga ka yar si uu kula qabsadaa way adag tahay wuu masayrayaa maxaa yeelay habarta isaga unbaa maaragtay ay hayn jirtay isaga unbay wax siin jirtay isaga unbay dhar u xiri jirtay isaga unbay dhabta ku fadhiisin jirtay marka wuxuu dareemayaa marka in meeshii laga yeeshay oo laga lahaaday mushkiladaasna way imaanaysaa laakiin qaabab loo daabayaa jiro waynu ku tegi doonaa waxyaabaha keenaya ka mid tahay waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah duruuf usra iqtisaadiya nolosha qoyska haddii ay liidato oo economic problem uu jiro oo qoys uu ka dhashay maxaan ku idhaahdaa iska liita nolol ahaan u liita ama deegaan ahaan u liita uuna arko saaxiibadiisii inay guryo fiican ku nool yihiin inay maaragtay cunno ahaan isaga ay ka fiican yihiin in nolol ahaan ay ka fiican yihiin wuxuu dareemi karaa marka ama waxaa la soo gudboonaanaya masayrka wuu imaanaya inuu masayro wa ficlan in dadka ay kala duwanaadaan noloshay ka mid tahay laakiin problemka markii uu dhasho qaab lagu daabayaa jira isagana waa ku tegi doonaa haddii alla idmo ugu dambayn asbaabaha keeni kara in mushkiladan
oo yani jiyolasiga ah ama alghiira wax la yidhaahdo cunug inay ku dhacdo waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah haddii lagu hor ammaano walaalihiisa ama saaxiibadiisa lagu hor ammaano hooyadii ay tiri hebel baa kaa fiican macallinka uu yidhahdo hebel baa kaa fiican ama xataa iyadoo aan la dhihin way kaa fiican yihiin ayaga wanaaggooda laga sheekeeyo isaga seetiisi aan waxba laga xusin ayadana waa imaan kartaa mushkiladaas inay dhalato lixdaas qodob oo hadda aan tilmaamay oo ay ka mid tahay yani inuu nuqsaan dareemayo yani maaragtay in anaaniya yani maaragtay aniga le koolkoolin iyo maaragtay ilmo yar kale inay dhasheen ama duruufta nololeed liidata ama in saaxiibadii wanaagooda lagu hor sheego lagu hor ammaano ayadana waxay noqonaysaa maaragtay waa problem kale marka intaas qodob iyo kuwa kaleba hadda oo aanan sheegin ayaa waxay sababi karaan in cunuga ay la soo mushkiladan la yiraahdo jiyolasi ama maxaan ku iraahdaa alghiira marka idinkoo aad u mahadsan xalqadii labaadna halkaas ayay nooga egtahay xalqada ku xigta ayaa ayadana waxaan idin sharxi doonaa ama aan maadaama aan ogaanay masayrka qeexiisa aan ogaanay iyo sida uu dhalanayo oo meelaha uu ka dhalan karo aan ogaanay haddana aan ogaanay asbaabaha keeni kara allah waxaan xalqada saddexaad aan ku soo qaadan doonaa maaragtay solutionska ama xalka sida loo xallin lahaa problemadaas marka aad baad u mahadsan wassalaamu calaykum waraxmatullahi